الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaad igala soconaysaan Kaabe Online College iyo channelka Ustaad Kimiko YouTube channel waa barnaamijkeeni koorsada ahaa ee aynu bilaabnay sanad dugsiyeedka 2021-2022 macallimiinta soo dhawaada ee classka online-ka ku jirta iyo ardaydaba course chemistry fasalka 4ka ayaan bilaabaynaa macallimiinay sida aan ka warqabno course chemistry-ga 4ka chapter-ka koowaad wuxuu ka bilaabanayaa hydrocarbons inaga marka waxaan ka bilaabnay introduction to organic chemistry sababo jira awgeed sababaha waxaa ka mid ah course-ka aynu ku soo darnay chapter-kan maadaama fasalka 4ka 3 uu ku jiro chapter-ka introduction to organic chemistry suurtagal tahay macalinka inuusan ardaydii form 3ga ugu soo dhigin ama form 3 ardaydaba macalinkaas isaga macalin u ahayn oo macalinka u dhigi jiray chapter-kana uu muhiim u yahay chapterada saddexda chapter ee 4ka ugu horeysa oo hydrocarbonska alcohol phenol etheriska aldehyde ketone organic acid ama carboxylic acid-ka ayaa waxaan doonaynaa marka in afar xiisa aan ku qasaarino si chapter-kan introduction to organic chemistry-ga si macnaha fahamkii ardaydii iyo xiisadiina iskula jaan qaadaan 9 chapter ayuu noqon doonaa marka 8 chapter oo 4ki ahaa oo 8 chapter ayaa 4ka ku dhignaa hydrocarbons alcohol phenol ethers aldehyde ketone and organic acid biochemistry biological elements chemical kinetics chemical equilibrium nuclear chemistry marka 8 chapter waxaa ku darsanayna chapter-ka ka horeeyo introduction to organic chemistry-ga ayaan ku daraynaa si macnaha xiisadii markaa aysan ugu qasmin yara buusin doonaa waxaa soo jeedinaya macallin Kimiko oo senior chemistry teacher ah kana mid ah macallimiinta magaalada Muqdisho Kaabe Online College-na manager-ka ka si la mid ah Kaabe Online College waxaad ka iibsan kartaa chapter kasto aad u baahato maadooyinka chemistry-ga biology-ga physics-ka xisaabta meel walba aad joogto si la mid ah waxaad ka iibsan kartaa fasalka aad doonto adigoo qiimo jaban ku heli kara si la mid ah Kaabe Online College sanadkan wuxuu soo kordhiyay maadada carabiga iyo tarbiyada fasalka form 1 iyo fasalka 8aad iyo fasalka form 4ga insha Allah ta'ala badal xisaabta fasalka 8aadna waan bilaabi doonaa si guud marka Kaabe Online College isbedelkaas ayaa ku dhacay oo macnaha in update ayaa laga dhigay insha Allah ta'ala jadwal ayaan soo dejin doonaa oo maalinla Kaabe Online ka bixi doona si gaara channelka aan uga ka wada macallimiinta online-ka wax ka baranaysana waan soo dhaweynaynaa muddo kooban maadadan chemistry-ga si gaara biology-ga iyo xisaabta iyo physics-kaba ay kaga daraasiin karaan na kaga aqoon kororsan karaan chapter-kan introduction to organic chemistry waxaynu ku baran doonaa insha Allah ta'ala dhowr qodob oo ay ka mid yihiin markaa dhammeeyno ardayga inuu macnaha ahdaafta ka mid ah inuu chemistry organic chemistry qeexi karo waxaan ku daraasay doon organic chemistry inuu main branch of chemistry yahay organic compounds-ka ardayga inuu sheeri karo sheegan organic compound waa in organic compound ardayga waa inuu kala saari karo si la mid ah characteristics organic compounds-ka ay leeyihiin waxaa baran doonaa meelaha organic compounds-ka laga keeno iyo qaabka ama representing organic compounds qaabka loo bandhigayo oo condensed formula miya formula miya molecular formula miya oo very important in form 4 aad noo saameynayo ayaan ku daraasin doonaa waxaan baran doonaa carbon atom wuxuu yahay electronic configuration-ka uu carbon uu leeyahay astaamaha carbon gaar kaga dhigtay marka organic compounds and organic chemistry joogo carbonka atoms of carbon and organic compounds inaan kala saarno nooca hybridization-ka uu qaadanayo sb sb2 sb3 iyo wixii la mid ah iyo allotrophies of carbon ayaan halkan ku qaadan doonaa insha Allah ta'ala xiisadan introduction si guud ay noqonaysaa saddex xiiso kalena waynu ku dhameyn doonaa buuga insha Allah ta'ala anay chapter-ka introduction to organic chemistry marka la qahadlayo organic chemistry-gu si guud macallimiinta wuxuu soo maray heerar kala duwan taariikhiyo laha qaybta baan ku arki doonaa qeexitaanka marka organic chemistry-ga hadda lagu qeexo ee modern-ka ah maxaa la yiraahdaa waxaa la qeexay 1828 kadib marka mid ka horeeyay laakiin kana aan qaadanay organic chemistry is a branch of chemistry waa qayb ka mid ah chemistry-ga which deals with taasoo lagu daraasanayo
the study of compounds isku dhishada barashada of carbon with hydrogen ee ku jiraan carbon iyo hydrogen oo loo yaqaan hydrocarbons and their derivatives iyo kuwa laga soo dharaanariyay si gaar waxa usoo gaabin karnaa is a branch of chemistry that deals with hydrocarbons and their derivatives macnaha hydrocarbonska waxa lagu qeexaa marka compounds of carbon and hydrogen kaliya waxa lagu magacaabaa hydrocarbons lagu magacaabaa hydrocarbons waxa lagu magacaabaa marka hydrocarbons organic chemistry sidoo kale waxa la kale waa barashada carbon iyo its compounds laakiin waxa baa laga soo reebayaa qaybtan oo qeexitaankii before 1938 ay raacsan yahay laakiin exception ayaa ku jira marka organic chemistry marka qeexan waxa leenahay marka waa barashada hydrocarbonska iyo kuwa iyaga laga soo dharaandariyay ayaa leenahay marka islafaan importance marka muhiimad nooca ayuu noo leeyahay organic chemistry marka in la barto organic chemistry-ga most of the energy used in automobiles trains aircraft heating our houses and office are obtained from organic compounds wuxuu leeyahay inta badan marka energy-ga loo isticmaalo automobiles iyada iyaga iswada trainada oo kale diyaaradaha shayada wax ku leeyahay oo guryaheena ku leeyahay sida somehow cunada wax lagu kariyo kale dhuxushi wixii la mid ah xafiisyadaba waxa laga helaa organic compounds ayaa laga keenaa leeyahay marka insha Allah ta'ala marka sida study hydrocarbonska importance-ga iyo noo joogi doona meesha ka bilaabi doona marka si guud marka qaybtan isla soo qaadan doona taariikhdaas soo maray oo wadaadadaas meesha ku qoran ay ka hadleen compoundska loo qeybiyay organic qaybtana muhiim ay noo tahay representative in organic compoundska qaabka loo muujinayo dhowr qayb ayaa jirto oo loo muujin karo oo kamid yahay molecular formula iyo wixii la mid ah waxa waaye in fasalkan qaybtan ayaan ku qaada dhigi doonaa sida ugu macquulsanna aynu ku boobsin doonaa insha Allah ta'ala wixii faahfaahin marka oo ku saabsan college-ka waxa ka dhexeeyay kartaan lambarada shaashada ee kaga muuqanaya lambar WhatsApp-ka ayaa kala xiriiri kartaan wixii warbixin oo aad kaga baahataan college-ka si la mid ah college-ka wuxuu idin diyaarinayaa maadooyinka chemistry-ga iyo biology-ga oo khulaas ah si gaar ah maadada chemistry-ga oo khulaas ah khulaasana u ah maxaa la yiraahdaa chapterska tusaalahaan oo kale marka la fiiriyo chapterada muqarrarka ku yaala activity fara badan war fara badan ayaa meelo badan ku yaala marka si arday macallinkii dhigayay maadada warkaas faraha badan oo kaga maarmo insha Allah ta'ala kaabe online college wuxuu u diyaarinayaa way fudud inuu ku dhigi karo waxaana kala xiriiri kartaa numberka shaashada kaaga muuqanaya waa 542443 ayaad si toos ah aad kala xiriiri kartaa kaabe online college iyo Ustaad Kimiko YouTube channel soo dhawaanaysa dhamaantiin si la mid ah kaabe online college iyo maxaa la yiraahdaa macnaha Ustaad Kimiko waxaan bilaabi doonaa fasalo offline ah labo area ayaan ka bilaabi doonaa area-da koowaad maxaa la barnaamijka online-ka offline-ka ah ee ardayda 4-ka si gaar ah aan ku dhiseen waxa waaye area-da xamar jajab labo area-da aan ka bilaabi doono waxa waaye area-da tradition fada macaani eedan insha Allah ta'ala inaan ka bilaawno ayaan rajeynaynaa dhamaan marka reer macaani number ayaa soo sheegi doonaa area-da xamar jajab iyo area-da tradition yaan ka bilaabi doonaa duruus si toos ah oo arday u soo xaadirayo ardaygan waxaa loo dhigi doonaa 4-ka ah 4 maado scientific iyo maadada English-ka oo 5 maado ay ardayga si gaar ah loogu diyaarin doonaa insha Allah ta'ala marka ardaydu way ila soo xiriiri karaan nambaro ayaan siin doonaa oo area-da xamar jajab xarunta ah iyo area-da tradition waad mahadsantihiin muuqaalkan waa share gareyn kartaan si arday badan u gaaro like saara si dad kale ay u gaaraan uguna faa'iideystaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.